بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان وادي ودا سلامة warbaahinada ka soo qayb galay warsaxaafadeedkan oo ay ugu horeyso warbaahintan Garas Channel, Tuna Media, Jugta Culus, Amandore, Radio Arladi, Afgoy Post iyo Wadani News iyo Banooda dhamaan waa mahadsantihiin ka soo qayb galka iyo ajiibta aan ajiibteen inaad nagala soo qayb gashaan warsaxaafadeedkan caawa warsaxaafadeedkeena caawa waxa uu ku qotamaa oo salka ku haya dhibaatooyinka maalmahan ka soo yeeraya gobolka Shabeellaha Hoose khaasatan degmada Afgooye iyo degmada Baraawe waxa waaye wax aad looga xumaado waxyaabaha dhagaheena ku soo dhacaya ama yaani la isla dhaxmaraya social media runtii gobolka Shabeellaha Hoose ma ahan gobol meel laga helay ma ahan maxaa yeelay gobolka Shabeellaha Hoose waa gobolka kaliya koonfurta Soomaaliya la dhihi jiray wadankii Soomaaliyeed Italian Somaliland la dhihi jiray gubeysiga Talyaaniga uu haystay koonfurta Soomaaliya markii la wada dhaho waa gobolka kaliya ee la dagaalamay isticmaar runtii waxaan u sheegaa dadka baryahan caadeystay hadalada maalayacniga ah oo aan meel loo dayanin oo ah ku qabso ku qadimaysid baryahan yani ka dhaxwadaan social media ama yani intay soo aroorsadaan 5 qofood iyo 10 qofood ay meelaha ka qayliyaan waxaan u sheegaa gobolka Shabeellaha Hoose in loo soo dhintay oo loo soo dhibtooday dhiig loo daadiyay awoowayaal ay ku dhinteen geesiyaal lagu waayay ayaan u sheegaynaa gobolka Shabeellaha Hoose waa gobolka kaliya ee la dagaalamay isticmaarkii Talyaaniga haddaba meel yani Soomaaliya kamid ah koonfurta Soomaaliya Italian Somaliland meel kale oo yani isticmaar la dagaalantay ya ii sheegi karo war haddii jirteen maanta markaad leedihiin annaga wax kule muqaale markaad leedihiin war shalay markii gobolkan loo dagaalamay isticmaarka la dagaalamay haddii jirteen weynakum ya ahbaabi weynakum تجرت where were you تجرت إيش هذا وكلكم والله صار انتي والله صار دجالة بيشا لده الله فوله وحال وقول دجالة تليانيكا بيشا لده بولو وحال وقول دجالة سدير مالبوت تليانيكا وحال وقول لي عن كنت هاي بربليري وحال وقول لي كابتن شيتي تاريخ ده دي بقول نقطة ما أهل دول كشبيلة هوس الدول يعني لهلاي أما يعني بقدي بيس تعودان ما أهل المادير يالو قبل كان والله صدمتي أبو يالا صدمتي ديك بالو دادي أو استعمار بالك لا دجالمي أو بتقاعد إذا كأود بدنا بتروح على الله نهاي النجا مدي ذينو إن وضعنا لانشو لكن واحد أقولنا هاي مرتدى إلى نقطة مرتي إذب له إلى نقطة أيان أقولنا هاي دول كشبيلة هو واحد اللي قد جاي هاي نظام يحير أيان اللي قد جاي هاي دكت السود الجيل وإيش أجيهن بطل ما وإيش وذا أجيهن قاب كي الجسود الجيل النظام كي الجسود الجيل ومذا أجنا هاي وأنا إيش أجنا هاي بس تقوى عن وحبة أوجين أو حد كيمد يعني وقويجان أما يعني دل مذوق يميلها كيمد أما هيرشبيلة كيمد يعني وحباب أوجدينه تاريخ ذا هو ياشين ويديو دول كشبيلة هو تاريخ ذي سبرته ما أهل دول كشبيلة هو ميل لقود دودي كره وايو ودول كلية ما أنت دلت الصومالية استعمار للدجالمي بتي استعمار التلياني للدجالمي هو ياشين للدجالمي هو ياشين وحي هيل عيدا وأهايين تلياني بمستهد وإهذين عيدا يهيلو ما فهمتين hadda markii shalay markay awoowayaasheen ee la dagaalamayeen Talyaaniga idinka awoowayaashiina waxay heelo u ahaayeen iyo ciidan Talyaaniga u ahaayeen marka hadda waxaan leeyahay abaartii dabadheer dadkii la keenay war shalay waad ogeedeen waan idin soo dhaweynay si sharaf leh idin soo dhaweynay dadka magacyaha hadda sheeganayo waan idin wada naqaanaa nin walba yaani maqaamkii iyo taariikhdii iyo maalintii la soo dhaweeyay waa la wada ogyahay waana is wada ognahay marka waxaan idin leeyahay marti edeb la noqda edeb ku jooga haddii martida ay edeb yeelan weyso waxaan u maleynayaa in la adbin doono waxaan la yaabaa yani maroodi biyo waa haddii la siina waa cabaa haddaan la siinina waa cabaa hadda adiga waad halmaansan tahay maroodiga waxaa ka adag rax ayaa ka adag ma ogido
warheede maroodiga haddii biyo la siina waa cabaa haddaan la siinina waa cabaa hadda waa runtaa laakiin waxaad halmaansan tahay in maroodiga uu ka adag yahay raha inuu ka adag yahay ha hilmaamin xisaabta ku darto yaysan kaa qaldamin marka waxaan idin leeyahay shalay waa la idin soo dhaweeyey nidaamkii iyo xeerkii la idinku soo dhaweeyey ku deganaada haddii aad taas diidaanne haddee waxa waaye waxaan kala helnaan leenahay tan kale waxaan ugu baaqaa maamulka la keensaday ee koonfur galbeed kii hore iyo kan hadda joogaba ee waraaqaha kusoo magacaawayo haraadigii salballaar waxaan leeyahay haddaad joojin weysaan haddee ummadda waa shabeelaha hoose degan waa istikin qabanaysaa idinka naftigiina haddii aad joojin weysaan waraaqaha aad kusoo magacaabaysaan haraadigaasi way istikin qaban doonaan gobolka shabeelaha hoose uma baahno dagaal uma baahno qaylo uma baahno buuq uma baahno gobolka shabeelaha hoose waxaa lagu degan yahay waa xeer iyo nidaam qofkii ogol xeerkaas iyo nidaamkaasne waa soo dhawaynaynaa waana ogolnahay inaan wada deganaano balse nin ile yani gurigaagaan aan kula leeyahay jeebkaagana waa kugu maamulaa hadda ilma adeeryaalow ciidanka yeelayna ma jirto jeebkaagaan kugu maamulaa hadda ciidanka yeelaya male jeebkayga ma igu maamulaysid gurigaygana anaa leh gurigayga anaa leh jeebkaygana igu maamuli maysid maamulka koonfur galbeed mar labaad iyo mar saddexaad waxaan ugu baaqaa ciidamada gobolka shabeelaha hoose ee baydhabo uu yani ku rafaadinayo oo hubka uu ka dhigay disarmamentiga waan u sheegnay dowladda UK ee masaariifta ka bixisa ciidamada booliiska ee koonfur galbeed waa gaarsiinay waanu u sheegnay wiilashaasi waa in la geeyaa deegaanadoodii si degdeg ah oo waa in loo geeyaa case ford way aragtay emailadii aan u diray wasaaradda arrimaha dibaddana way haystaan waxaan leeyahay ciidamada deegaanka gobolka shabeelaha hoose ee baydhabo lagu haayo ee disarmamentiga laga dhigay waa in la geeyaa deegaanadooda sida ugu dhaqsiyaha badan haddaan taa la yeelin waad ogaan doontaan jawaabta ka imaanayso ugu dambeyntii waxaan leeyahay maamulka koonfur galbeed ma soo magacaabi karo wareegtana ma soo magacaabi karo cid aan deegaanka u dhalanin waxaa qalad ah in deegaanka dad aan u dhalanin laga siiyo xildhibaano iyo wasiiro ma ogolaan karaan shacabka khaasatan gobolka shabeelaha hoose shacabkiisa waa ay diidan yihiin in deegaanadooda lagu maamulo way ay diidan yihiin waxayna diyaar u yihiin sidii shalay awoowayaashood ee u dhinteen inay u dhintaan ayay diyaar u yihiin marka taas waa iga mataqaanaa horodhac aan u sheegaya maamulka koonfur galbeed haddii arrintaasi aadan hadda wax ka qabanin berinta farahay ka baxaysaa ogow marka war saxaafadeedkayga intaas ayaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh